Qaramada Midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsan tahay 180 lacagood oo sharci ah adduunka oo dhan. Marka laga yimaado caannimada lacagaha qaarkood, waxaa jira lacago laga yaabo inaanad hore u maqal ama si aanad ka filahayn kaalmaha qaarkood oo barnaamijka aad ku arki doontid. Balse intaasoo dhan ka hor saaxiib, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid, barnaamijkana noo share garaysid. Mahadsanid. Kuwait Dinar. Tan iyo waqtigii la sameeyay lacagta diinaarka ah ee Kuwait waxay ku jirtay kaalinta koowaad ee kala sarreynta qiimeynta lacagaha adduunka. Halkii diinaar waxaa lagu iibsanayaa $3.26. Haddii aan si kale u dhigana, halka doolari waxa uu la mid yahay 31 filis oo diinaarka Kuwait ah. Kuwait waa waddan yar oo Carbeed oo ku yaala gacanka Faris ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Ciraaq, waxaana dalkaasi uu dhaqaale aad u badan ka helaa dhoofinta saliidda. Bahrain Dinar. Diinaarka waddanka Bahrain ayaa ah lacagta labaad ee ugu xoogga badan caalamka, iyada oo halkii diinaar lagu sarrifayo $2.65, amase halkii doolari waxa uu la mid yahay 38 senti oo diinaarka Bahrain ah. Bahrain waa jasiirad ku taal gacanka Faris ee xeebta bari ee waddanka Sacuudiga. Sida Kuwait oo kalena, waddanku waxa uu dhaqaale aad u badan ka sameeyaa saliidda iyo gaasta ay u dhoofiyaan dibadda. Diinaarkan Bahrain waxa uu soo baxay 1965. Cumaan Riyaal. Riyaalka waddanka Cumaan waa lacagta saddexaad ee adduunka ugu xoogga badan, iyada oo halkii riyaal lagu iibsanayo $2.60, ama halkii dollar uu la mid yahay 38 senti oo riyaalka Cumaan ah. Cumaan waa waddan yar oo ku yaal inta u dhaxaysa Imaaraadka Carabta iyo Yemen ee cidhifka bari ee jasiiradda Carabta. Si la mid ah dariskeeda hodanka ahna, Cumaan waxa ay dhoofisaa saliidda iyo gaasta. Riyaalka Cumaan waxaa la aasaasay 1970-meeyadii. Urdun Dinar. Diinaarka waddanka Urdun waa lacagta afraad ee iyana ugu xoogga badan adduunka, iyada oo halkii diinaar lagu iibsanayo $1.41, ama halkii doolari waxa uu la mid yahay 71 diinaar. Urdun waa waddan inta badan aan bad lahayn oo ku yaala bariga dhexe, oo aan ku tirsanayn dhoofinta saliidda iyo gaasta marka loo eego waddamada kale ee gobolka. Diinaarka Urdun waxa uu soo baxay 1950. British Pound. Pound-ka waddanka Ingiriiska waa lacagta shanaad ee ugu xoogga badan adduunka, iyada oo halkii pound lagu iibsanayo $1.22, ama halkii dollar uu la mid yahay 82 senti oo pound. Dhaqaalaha Britain waa kan lixaad ee adduunka ugu weyn marka loo eego wax soo saarka guud ee gudaha waddanka Ingiriiska. Haddana lacagta Ingiriiska ayaan ku jirin kaalintii laga filayay. Ha yeeshee, waxaasoo dhan waxaa ka sii daran lacagtii adduunka ugu caansaneed ee dollarka oo gebi ahaanba aan ku jirin 5 lacagood ee ugu horreeya adduunka, waxaana laga soo helayaa kaalinta 10aad. Waa marka ay noqoto qiimeynta isku sarrifka ee dollarka lagu qiyaaso.